السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بعد ساعتي وحن مركل كرر لجلنا مدة هودا كوكلا مغنين وحن جود هان إسلام دونا إسلام مركنا فلانقين دونا برنامج كان ويلكم كوربس وأن هذا كور إن بدن كهذا الله سؤال فربنا أوكي منك جوابني لكن واحد ليس إن مروا الباقي سؤاله إسك الصوت ضبط عيان مركا هدان أوكلا قادنا لبق قيبات أوكلا قادين وحكلا معهن برنامج كان وحقو سيا لبق تيم سبونسرس أو وحود دعوونية أو أمريكا أما يعني ذلك حاجة جوجا يتيمka loo dacwoonayo ah dadka qaxootiga ah marka labadaas qowlaha aan kala qaadayna qolo walba requirements baa laga rabaa shuruudo laga doonayo inay buuxiyaan hadaysan shuruudahaas buuxinin waxba ma soconayaan marka dhammaan waxaan isla falanqeyn doonaa hawlaha iyaga ah soo dhawaada markale su'aalaha inta badan dadku soo weydiiyaan ayaa waxa kamid ah qaabka ay dadka u qaadayaan qaabka uu yahay inta sano uu qaadanayo barnaamijkan dacwadan soconayso yani su'aalo fara badan oo aan halkan ku soo koobi karin laakiin waxaan isku daynaa in guud ahaan muhiimka aan dul marno dadka sponsorska ah shuruudaha laga doonayo waa ay ka badan yihiin dadka loo dacwoonayo waxaad malaysaa inaysan wax badan aan laga rabin oo wax iska kooban yihiin laakiin dadka sponsorska inta badan shuruudaha ugu badan waa dadka laga rabo waa iyaga marka kuwaas baan insha Allah in badan isku taagi doona shanta qof ama dadka dacwoonaya waa inay ugu horeyn qayb ka noqdaan application support session waxa loo yaqaano taasoo macnaheedu yahay inaad hesho caawimaad ku saabsan sidaad applicationka u xarayn lahayd una ogaan lahayd waxyaabaha laga doonayo iyo waxyaabaha aan muhiimka ku ahayn oo aan laga doonayn sida aan wada ognahayba applicationku dhowr qaybood ayuu ka kooban yahay waxa sidoo kale jirta in requirements unique ah ama gaar ah laga doonayo shanta qof oo dacwoonaya ama sponsorska ah waxa sidoo kale isla ogeyn in groupka shanta qof ah ama sponsorska bas aad u taqaano ay jiraan shuruudo laga doonayo oo ay kamid tahay in shan qof groupku noqon karo iyo wixii ka badan in dhammaan dadkaasi yihiin dad haysta passportka Mareykanka ama waxa loo yaqaan green cardka Mareykanka in ay 18 sano jiraan ma ka weyn yihiin in ay ku nool yihiin hal goob يعني هل ميل تصميم هيدو يهي إن مسافة أي سجيران أي تهي إن لو كلا سعون كرو صدن إلا 20 دقيقة جروب وإنه ليه اسكو حرير أما كوردينيتر هاد بس إذا أوتقان قف جروب كمدح وجروب كاس أردن حريرينية وإنه جرا وحسيتو كلا شروطها كميدة إن جروب كليه هي مجا أجار مجا يونيك أو إنسان كميدة هين مجا ويلكم كوربس تصار هلا ما بعنا إن هذا ثلاث مجا بيحسوا مجا عاد بيحس كل فاضل مجا ويلكم كوربس أما كلمة ده ويلكم كوربس أما مجا عاجا أو كلا تصال أهان هدي حسين لو dhaho ma aha inaad groupka Xuseen u bixiso ama Faarax u bixiso waa inaad magac gooniye la timaadaan oo aan magacyadiinana ahayn aysan ku lifaaqnayn magaca ama kelmadda welcome corps taasna wax kale loo yeelmiyo waxa loo yeelaya in uu noqdo groupkaaga magacan uu noqdo magac lagu aqoonsado maadaama dadka applicantska ee programkan dalbanaya ay yihiin dad aad u fara badan marka in lagu aqoonsado bay dawladda ugu talagashay waxa kale muhiim ah inaan xusno group membersku hal group wada deganaan karaan oo dad hal meel wada degan way noqon karaan waxay sidoo kale noqon karaan dad family ah oo qaraabo ah oo awalba hal meel deganaa way noqon karaan sidoo kale wax kale muhiim ah inaan xusno group membersku way noqon karaan dad aan waxba iska gelin laakiin hal meel wada degan sidoo kale waxay noqon karaan dad family ah oo hal meel wada degan sidoo kale way noqon karaan waa inaad sidoo kale iska eegtaa si wacan isaga akhrisaa waxa loo yaqaan commitment formka maxaa yeelay waa heshiiska ad iyo dawladda idin dhaxeeya mar walba oo adiga on formkan si fiican uga taxadarin si wacan u akhrin aad saxiixdaa waxay ka dhigan tahay mar walba ay caqabadi kaaga timaado si wacan inaad isaga eegtaa waa muhiim formkan waxaan filayaa 5 ilaa 6 page inuusan ka badnayn waxa kale arkaysaa dad inta badan ka walaacsan barnaamijkan inta sano uu soconayo waxa sidoo kale xusid mudan in programkan welcome corpus uusan waxba ka duwanayn qaababkii qaxootiga loo keeni jiray laakiin kaliya waxa kala duwan ay yihiin caseska waxa kale muhiim ah inaan iftiimino qaab individual ah ama shakhsi ah marka lagu dacwoonayo garanay laakiin arinta familka sida loo fahmay waa ay ka duwan tahay oo marka aad famil maqasho waxa kugu soo dhacaya dad dhalasho ahaan aad iskugu dhow laakiin sida ma aha oo xitaa waxa famil samaysan kara group dad ah oo isku yimid waxbana aysan iska gelin yani aan qaraabo ahayn laakiin muhiimadda ayaa ah in ay iyagu famil isku arkaan yihiin dad hal meel ku wada nool kuna wada noolaan kara dibri ay barnaamijkan u soo baxo ama ku guuleystaan waxa sidoo kale jirta su'aalo inta badan soo laalaabta tusaale shanta qof ee groupku ka kooban yahay qof ka yimid group A group B ma geli kara tusaale ahaan marka way suurtagal waana barnaamijkaas dhowr jeer baa la weydiiyay dadka su'aalaha ugu badan inta badan looga jawaabayay su'aalahaas kamid ah soo laalaabanay laakiin waxaan marnaba la ogolayn in dawladdu ka aqbalaynin group A dadkii joogay dhammaan ay yimaadaan group B tusaale ahaan afartii qof markii laga reebo qofkii coordinatorka haday yimaadaan group B ma la aqbali doono groupkaasna waxay u badan tahay in uusan sii soconin waxa kale kamid ah su'aalaha inta badan soo laalaabta barnaamijkan ama programkan welcome corpus loogu yeeray imise sano ayuu qaadanaya dacwadani imise sano
sanay soconaysaa ama imise bilood bay soconaysaa markay dowladdu arrimahan ka jawaabaysay ama ka hadlaysay ama sida ay website-keeda ku qortayba 6 bilood ilaa iyo sanado bay dowladdu qortay marka sanaduhu waxay noqon karaan 2 sano 3 sano 4 sano kulliba waa wixii 1 sano ka badan waxayna groupkan 5 qof ka kooban ugu yaraan halkii mar u dacwoon karaan hal qof ugu badnaana qoys ka kooban ama 8 ama 9 ama 10 hadba intii la doono qoysku ka kooban yahay way u dacwoon karaan waxa kale oo jirta dadkaas ay u dacwoodeen markay keenaan kadib muddo 3 bilood ah ama 9 cisho ayay shantaasi qof awood u yeelan karaan inay application kale furaan ama application labaad xareeyaan oo ay ugu dacwoonayaan dad kale laakiin inta ka horeysa dowladda ma ogola marka shuruudaasna waa jirtaa oo ay ku xireen ugu dambeyn haddaan isku taagno qofka loo dacwoonayo ama qaxootiga ah waa inuu yahay qaxooti diiwaangelintiisu ka horeystay 30 September 2023 hadda aan sagotinay waa in dhammaan dokumentiyadiisa qaxootiga iskaan mariya dibna dira iyagoo color ah sidoo kale waxaa laga rabaa inuu qofkan la yimaado photo ama soo galo sawir 2 inch ah ama 5 cm times 5 cm ah hadba sidaad u taqaan waa inuu sidoo kale qofkan soo diyaarsadaa case waxaan looga jeedaa qofkan markuu qaxootiga iska qoreeyay UNHCR ka iska diiwaan gelinaya dabcan dhibaato ayuu sheegtay marka dhibaatadii uu sheegtay isagoo ku base gareynaya waa inuu soo qortaa case aan ka yarayn 500 oo eray sidoo kale waa inuu cadeeyaa aad u qeexa sababta uusan dalkiisa ugu laaban karin iyaduna waa inaysan ka yaraanin 200 oo waadis ama 200 oo eray shuruudaha laga doonayo qofka loo dacwoonayo ee qaxootiga ah inaas ayaa iyagana ugu waaweyn ugu dambeyn inta programkani socdo si dhow ayaan iskula socon doonaa waxaana mar walba diyaar u nahay ka jawaabidda weydiimihiina haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad soo booqato channelkeena waxaan naga xasuusin ah inaad like garayso siina share garayso si uu muuqaalkani u gaaro meelo fogfog annagana dhiirigelin bay noo tahay adigana waxba ku yeeli mayso intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa anigoo walaalkiin saacid xaaji aadan ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu